nin u noqdo هو كلام عيه هو كلام كلام قيل كده هو كلام واحد اوكي نيجي عليكم اصحابتا سو دوادا waa asxaabtii channelka farxiya vlog oo barnaamijyo xiiso badan kala soo kartaan caawa saa u jeedaan saddexdeena waa aniga maxamed daahir cumar ah farxiya xasan ahmed salaad saddexdeena caawa barnaamij adag oo jilbaha isku dhigtay oo lagu kala harayo ayaan wadnaa maadaama ay ramadaan tahay oo ramadaantii lagu jiro maxaa la dhahay bandow iyo kafi iyo waxna jiraan waxaan rabnaa in tartan aqooneedkii bisha ramadaan aan ka qayb qaadano labadan qof ee geesaha iyo fadhiso ayaa su'aalo weydiin doonaa labadooda ayaa tartamayo anigana waxaan ahay qofkii su'aalaha weydiin lahay qofkii ku guuleysto dhibca batana abaalmarin qaaliya ayaan sii doonaa insha allah tartanku wuxuu ku saabsan yahay ereyada soomaalida inta bawaagor la isticmaali jiray ama ereyada haddaba la isticmaalo marka qaar dhaqankii iyo hiddihii soomaalida inaan ku tartanno oon afka soomaaliga aan isbarno ayuu ku saabsan yahay marka soo dhawaada asxaabta labadiina waxaan maray inaad diyaar tihiin aada u weyn okay waan bilaabanaynaa ereyga koowaad qofka midigta iga xiga ayaan ka bilaabayaa deena bidixda ereyga koowaad farxiya xasan waxaan kaa rabaa inaad sheegtid macnaha loola jeeda ama laga wado ama macnahiisa oo fasirtid waxa loo yaqaano carmal carmal عرمل ah عرمل وحال عرمل إسلامته جروك هذا islaanta garoobka ah أما قبل الجرو ناكت جروك aad iyo aad aa u mahadsan tahay su-aashaas si fiican ayaa u saxday hal dhibic ayaa laba dhibcood ayaa leedahay meeshaas waxaa soo haray axmed salaad waxaa lagaa rabaa inaad sheegtid toboleed toboleed ereyga toboleed waa erey soomaaliya hadna loo isticmaalo inaad sheegto ayaa laga rabaa toboleed ma garanayo taas ma garanaysa ma garanayo okay haddaad garan weysay ka faa'iidaysa ahaan haddaad ka faa'iidaysan karto farxiyo أداش تولد حواي دريس ميراجا أو شوبينج كيو حسب صارتو ku celi دريس ميرا okay waa si fiican toboleed si fiican maxaa lahaa aad uga jawaabtay maadaama ay ka faa'iidaysi tahana hal dhibic ayaa leedahay adiga ayay haddana kugu socotaa farxiyo waxaa laga rabaa inaad sheegtid ereyga la yidhaahdo ambat يا ambat oh my god أمبت ah أمبت ereyga ambat macnihiisa ayaa laga rabaa أمبت وحواي وادنتي waa dhuntay هو قف واحد دمي وحي واحد دمي alla ilaha dhumid iyo ambat waa isku mid waa sax waad ka jawaabtay laba dhibcood axmed waxaa laga rabaa inaad sheegtid ereyga la yidhaahdo gisiin gisiin ah waa xero meel la ooday camal oo kale waa gisiin mar labaad haddaad ku laabato gisiin waxaa loo yaqaan erey gisiin saasaan u qaatay waa qalad waad ka jawaabi weysay haddii aad ka jawaabi karto farxiyo ereyga gisiin بسين معقاني gisiin ma taqaan مايا okay hadday labadiinaba soo haraad martay oo aad mar labaad ka jawaabi weysay gisiin ereyga ah anay igu soo laabatay gisiin waa wax la cuno gisiin cunto ama wax la cuno camal waa heesi ku jirtayba gisiin aan la cuni karin
insa ku jirto Gisiina gisiin okay halkaan u gudubno waxaa soo haray farxiyo aday haddana kugu socotaa markaan waxaa laga rabaa inaad sheegto waxaa loo yaqaano heerin heerinka asal la dhahaa oo soorta lagu sameeyo maya heerin ereyga heerin wax loo yaqaano haddii aad heerin adiguna garaweysay halkaas waxaa laga rabaa axmed inaad ka faa'iidaysato ereyga heerin adaa taqaano heerin macnaheedu haddii aan isku dayo heerin erey aan garanayo ma heerin ma garanaysa waxaad u malaysaa in labaha aad iyo aad kugu xulis yihiin heerin haddii aad garan weysay labadiina way soo hareer martay ereyga heerin waa erey hore oo aad iyo aad loo isticmaali jiray waxaa dhihi jiray gabdhaha khaasatan dumarka ayay aad u qusaysaa dumarku markay meel kale ka yimaadaan ereyga heerin haddaad labadiinaba garan weyseen waxa weeye dumarka ayuu ku saabsan yahay dumar meel kale ka yimid qolo kale u tegay ayaga oo markaas raadinayo gayaan ama guur ay nolosha la wadaagaan iyada inta badan dumar fara badan oo waagii hore Soomaaliya jiri jiray oo meel inta ka yimaado meel kale u socdo oo qolo kale u tago ama sida qabiilada Soomaaliya way u diri jiray qabiil inta ka yimaado qabiil kale u tago ayagoo markaa doonayo guur raadinayo ay heerin loo yaqaanaa su-aashaas iyay maraysay waxaa marka hadda waxay maraysaa Axmed Salaad ayay maraysaa Axmed waxaa laga rabaa ereyga la yiraahdo edeg haddii la yiraahdo waa dhaqan dhinaca ribadiya isticmaalaan markii xoolaha la soo xareeyo kale edeg ama waxaraha la kala geliyo kale ayaa edeg la yiraahdaa edeg meesha xoolaha lagu xareeyo okay waa saxday 100% Axmed labadii dhibcood luqadayda ma laakiin waa dhaqan Soomaaliyeed okay farxiyo waxaa laga rabaa waxa la yiraahdo habeed habeed ereyga habeed waa erey Soomaaliya waxaa laga rabaa inaad sheegto maxaa laga wadaa habeed hawmiya adiga adaa laga rabaa inaad ka joogto ma aqaani habeed hawaa laakiin uma leenaya hawo xunahay waa garoweysay habeed ereyga habeed si ka faa'iidaysiya haddaan kuu siiyo Axmed habeed haddaa ka jawaabi karti habeed haddaan ka jawaabo maadaama farxay laba jeer igu faa'iidaysatay xoola dhaqatada geela loo yaqaana markii oomo kale markuu magacaysiiyo oo tigoo kale markuu yacni dhabarka uga yaalo aa la yidhaha habeed kusoo celi dhabarka habeed taasaa la yidhahda xoolaha geela kaadidiisa waxaa la yidhahdaa habeed geeladiisa habeed laakiin laba su'aal kala duwan aad ku jirto hal mar haddaad ku celiso habeed haddaan u qaato geela kaadidiisa ayaa la yidhahdaa habeed geelkaadiisa waa ku aqaanaa waxa aqaano iweydiisiso ايش راح يصير لي سويدينا صراحه كل يوم مرة واحد من اوكي فرحيه اي مريسا waxa laga rabaa ereyga burkiyeri ina sheegto ya burkiyeri burka oo soonka la sameeyo burkiyeri laga rabaa ina sheegto ereyga burkiyeri ma qaan burkan la sameeyo soonka oo maleena maahan burkiyeri أنا أبي سمراء في أربعين هذا يا بركيري على يلا burkiyeri ma qaani أحمد هيا أبي ده Soomaali miya haddaan si faa'iidaysi ugu soo laabto arrintii farxiyo oo la weydiiyey waxaan u arkay inay ka faa'iidayso weyday burkiyeri haddaan isku dayo inaan qalbi doono ilaah baa og burkiyeri mise burkiyeri waayo burkiyeri waxaa waye meel dumarka lagu sameeyo timaha iyo burkiyeri waa aqaanaa oo qaroosyada iyo hadhig
دور الله يرحمه صالون الله ما يسكسوا صالون يمكن حسكمت صالون كموت الإنجليش مرة بعد عيال بيع عيال فايز كهر يا فانو اللي فرق مقدار هاي إن واحد لقى ربع إن أوكي فرحية أي مريسة ما يوحي مريسة أحمد أي مريسة أحمد واحد لقى ربع إن شيء واحد لو يقانو أبلي مع أبلي ومع صوماليا إن ما معناه سواء كدين هذا أسود ضيق سؤال الوجودي أبلي ما قرنا يرجعس يرجع وقصبه أبلي ما قرويس أوكي هدي أنا عشان سيرو أيوة كهلاي فرحية وجود بين ناس كفايديس هدي كفايديستو حال اللي بيع يلا إن شاء الله يرجع أبلي يعني يلا يا رب أبلي وإحنا عيارني هاي عمّا مية لو أنا مت ساسا أملينا عيارة أملينا أبلي عيار أو دتك عياران أو عيار نقمتها أملينا أوكي لو يجي لو واقفتين نجس أبلي وحنا لو يقانا توري ده عيا أبلي لو يقانا فهذا لو يجي نجرو ويسين عيرانا إذا كيف يدي وحاسوها رأي فرحيو وحن كان روا إن شركتي أريج سحرون وحنا لو يقانا سحون حالنا صحيان بدن أو جمع نقدي سحون وعلي صحن يالو هي سحنايو صحنايو بس صحن يالو اوكي انت سو دويدي انت كاد من انا كودرا سحون هذه ويلاشا معونتا عيال هذا معونتا اسكو magaciin halkaas laba dhibcood ayaa ka daftay waa laga baas qab أحمد أديه وحى فرحية جوته ما أحمد جوته أحمد وحى لقى ربا إن شيكتي وحى لو يقانو جدًا أرجع حضان سكوبه جدًا تا وريجوراجو أقف أي سحران أو قارك هو صور جوريكي جدًا لو يقانو الجوراجا مساق الصومالي أقل صومالي لو يقانو جدًا متك خاص أو خاص وبحرم قيبت هوس الجوري قيبت هوس الجوري halkaas laba dhibcood ayaa daf ka dhacay waray waa ka saaran waxa ariga kale oo laga rabo farxiyo aday ku maraysaa waxa waaye ugub ina sheeg ugub waxa waaye wax kasto curanina laha gabadha maxaas oo markaas uurka camal ugub waa gabadha cunuga ugu horeeyay dhalaysa اوكي واضح علي هلكاس ادينا لaba dhibcood ay alxamduliina ka qaadanaysa xamduliina kulli min joogti okay Ahmed adi waxa laga rabaa ereyga daleel ina sheegtid daleel ereyga sadan isku daleel anu waxaan u garanayaa geedaha oo baxay aad u baxay in daleel loo yaqaan لكن سي قبل سوق يقان كذا عنو تاس أساسا مقارنة دلال جيرو دلال وقاضي كمان جابت صح ما شيء واحد لقى فرحية هذا كيف يسكتوا رأي دلال وحواقا وحاوما لنا يا واحد دريرو بيو عمل ساس اوكي دلال وحوا جيت كوستيس كوستيس وتفهم ويسا دلال waxa la yiraahdaa meel banaan maraysa meel banaan meel farxiyo waxa laga rabaa inaad sheegtid birmad erayga birmad waxa loo yaqaan ayaa laga rabaa ya birmad waxa la dadka masaakiinta maya dadku ceshato marlaad ma aqaan wala birmad hadii aad aqoon weysay waxaan rabaa inay Ahmed xagiis u soo gudubto hadii aad ka faa'iideysan karto erayga birmad waxa loo yaqaan erayga birmad hadaan si ka faa'iideysay farxiyo aan uga helay birmad waxa loo yaqaanaa waxa dadka ugu horeeya dadka oo ugu wanaagsan ayaan u naqaanaa birmad oo for example qafkaas waa qaf aad u wanaagsan birmad saas ayaan u garanaynaa
ama gurmad wax qaf gurmanaysid oo kala caawinaysid iyadana birmad oo u aqaan labadaas eray ka erayga hal macno ayaa macna ku soo koobtay gurmad ayaan u qaadanaya okay tii hore inkastoo galab gelisay laakiin birmad waa sax waa gurmad halka maadaama ay zero meeshan waxay ka heshay aduguna dhibic ayaad ka heshay ka faa'iideysi ahayd bare wagaad ka door صوصة كاسي سعنا ay waxaa laga rabaa Ahmed inaad sheegtid erayga gashaanti أنا أقول فعلا ergaas gashaanti haddaan dhaho ka jawaabo waa gabar yani inana gashaanti ayaan u aqaanaa ergaas inaan gashaanti inan si fiican ugu macnee inan oo gabar aan weli la guursan ayaan u aqaanaa gashaanti gabar weyn alla ilaaha waad saxday erayga gashaanti halkaa 2 dhibcood ayaa haddana ka daftay waxaa waa ka hel دم لها نوت farxiyo waxaa laga rabaa macnaha erayga la yiraahdo koobadiin كوميدين حلا koomadiin بحلا يركو سررت أجيال سررت أنا كل بحلا أجيال bahladu maxay yihiin dad macna maxay baalaas qaanada yaryarka oo waxyaalaha yaryarka la gashto oo sirraha garab yaalo كوميدين waa qaana alla ilaaha halkaasna waad saxday 2 dhibcood adigu isku qaboojin Ahmed haddaan u imaado waxaan kaa rabaa inaad sheegtid erayga mililic erayga mililic erayga mililacada إيش أنا مغلق جرب فرحين ما دام يكاد واجر. الله أنا شيء الله يكسب فكرت. باكس إنه أرجع المكان معي. الحمد لله. من هاي السنة قريب من اللي عمل لك هي سنة يعني وقرنا هي. وين ما قرنا يرجع. مليلع وقروي سي عدي أتقروي سي. لا كسر مليلع حالة مليلع على ربك. مليلع على ربك معناتها. ما معناه مليلع. وين شيء قدام من ربك لسعتها. ربك لسعتها. سوي لسعتها محي تعيد. مليلع على وحواي وح. برخدة جوجا عميانا نلك عرك كذا ديرة. واقفتي أدينا واقفتي أرجعس واحد وديني هذا وياشا إن أي كومنتي ولا كسر ديبتان ومحل هاي أرجعس أي كسر جوابان وهم رجعين سينينه dad fara badan oo ereyada Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliya aad u yaqaan jiro marka ayaga u doonayna inay ka keenaan adiga ku wadka ma aniga ka jawaab garan laakiin waxaan rabaa ayaga inaan uga dhigo ayaga waxaan rabaa inaan u daayo okay adiga ayay ku maraysaa waxa laga rabaa farxiyo inaad sheegtid ereyga labeenta waxa oo kor ka soo maro labeenta caanaha kaleeto واحد معنى لبين أريج اللبين على جربا لبين عانها لبين تود محيطها يعني عانها مركب فديستا واحد سوق عملها كورك سومر وإسقف صنايو ساسا كده عانية وسكجرو أوكي الله إله واسعي بقدر كلامه وقدر عند الوياشة لبين واحد أحمد واحد على جربا أريج اللي يهدو سوهيد سوهيد erayga la yiraahdo waxaan u garanayaa xarig si fiican loo istaajiyay oo xooggan soohid kaas ayaan u garanayaa ku celi hal mar hadda salaad si fiican ugu soohid waa wax la hoolo kala kor laga holo ama maqaar ama xarig ama magaciisi oo kala soohid kaas ayaan u garanayaa waad gaftay erayga soohid meeshaas ma ahan garan ka faa'iideysan karto erayga bas ku qoran meeshan cidna ma qashi karto سوهيد وحال لها لو حساس لسكوه دحقلنا يلسكوه سوهايو حاواي ما فهمي حرقو كاليتو مركو سعودية واسكو سولاوي ساسا اسكو لها وتدعي عمل تدعيت الله إله هل كاسبات كجوابتي هل نبع هل نبع عديها شوي هل نبع يا سوهيد تدعيت كها شيء ما دام أول حتى دانك مي كتقاني هذا ولا أقول سرنا عاص أوكي فرحية واحد لقى ربع إن شيء أرجع عليو يا عليو دتك كل عليو عليو يا عليو
الله تاسوي أقوني جري عليو عليو وحلك العلة لك الريوة صح؟ ها واخرة عندوف واي عندوف الله إله وهذا الشيء إنك صور فطي وهذا الشيء يمكن اللي يراعيه أحمد صلاة وحلايات ربع إن الشيء أرجع اللي يراعيه أرجع أوكي عن كان ربع أرجع اللي يراعيه بارقب أرجع بارقب وحلو يقعنا حول رقبته أوقته هي اللي يقعنا جيل الجودة بارقب وجيل كجرة هي اللي يقعنا بارقب كاسان أيام قرنيا صفة نوع عليه بارقب كاس بارقب حلوه وارتجع عن الرن وجيل كلي الله ضعفي إنه جيل وقت كذا أو نينو نقوم هو كلام عيني هو كلام جيل كده هو كلام واضح اوكي نيك جيل ku jira dhaday baarqab waartii hayb geel lagu daayo halkaas ayaan ka qabanayna waana sax laba dhibcood ay meesha shay marka halkan waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena laba su'aalood midna aan ku weydiinayaa midna farxiye ayaa iskale hadda waxaan ku hormarayaa farxiye maraysay farxiyo waxa laga rabaa inaad sheegtid erayga welwel ama welwel laba eray oo ku macna ah والول والبهار كو والول إي والبهار إيو مروق موضع بس لما يريد الولول هذا شيخت ما والبهار مروقان كلها الله إله ماشي سوا صحتي هذا عاد ما كاتي والله فايدة سيجرا ومقعيس وسويا ما فايز بسويسة اوكي احمد waxaa laga rabaa inaad sheegtid erayga barxad laba eray oo ku macnaa barxad laba eray oo ku macnaa banaan aha iyo cildo ama yaa banaan meel banaan barxad waa banaan wax kale ma garanayo labadaas ay filan waqaan banaan iyo barxad waad giftay haddii aad ka faa'iideysan karto erayga barxad laba eray oo ku macnaa laga rabaa barxad iyo banaan barxad iyo banaan barxad aan ka rabaa bis laba eray ku macnaa banaan iyo kuanjo Swahili ma hadlaya Swahili ma mugda Soomaali iska farseed فرصة كحرة. لا حاجة بيزيد. هاي أنا شيء قايو بنان يو بعيد. يا أريج برحت لا أريج أو كم معناه أيان كاروا. برحت بنان دارت محمد. يا دارت. وقرون. أريج أنا. قرون. أقون ويسي. قرون. أقون ويسي. يا. قرون. قرون واحد إنجليش بقى. تبقى أريج أو سومالية أيان كاروا. فرحي ما يزيد إزدي. ولسك شيء قايمية كوبي مجرمية مشان إكزام بنتك عليه. وحاول أنا بناني وحواقنا. بس. labada su'aalood ugu dambayso hadii aan ku daro eeshaas waad garaweyseen labadiina waad garaweyseen kana anaka jawaabi maayo waxa laga rabaa dhageystayaasha ay u daynaynaa in ayaguna commentigooda iyo ay ka soo dhiibtaan raadooda anagaas way noo qoran tahay waxaan rabaa Ahmed waxay maraysaa farxiyo waxa laga rabaa erayga ambat laba eray oo ku macnaa erayga ambat laba eray oo ku macnaa lumaye ay dumit ko ambat iyo donitan erayga
farxiyo waxaa laga rabaa ereyga ambad laba eray oo ku macno ah ayaan kaa rabaa ereyga ambad laba eray oo ku macno ah ambad waxaa waaye dhumitaan wax dhumay iyo wax ambaday iyo wax la waaye ilmo yaroo la waaye ambad waxaa laga rabaa dhumid waa sheegtay haye midka labaad ku dar ma aqaani haddaad garaweysay ka faa'iidaysa hawaw haye okay halkan baad kasoo baraarugtay halkan baad kasoo baraarugtay laakiin ku dhaafi rabtay meeshaas laba dhibcood ayaad la daftay waxaan kaa rabaa axmed inaad sheegtid ereyga aroor laba eray oo ku macnaa laba eray oo ku macnaa aroor waxaa waaye minaga fidis sidaas ugeey abtida ka tan lama yeelay waxaa waaye aroor jarmaad wujudaa ya ereyga aroor laga rabaa laba eray subax iyo alasay labadaas erayaa kasoo ku macnaa subax iyo alasay laakiin waxay tan carabi iyo Soomaali waa Soomaali adoo cad hal xabba leh bahayn maxaa u kala gal subax alasay le maqli jir waliye subax alasay ama aroor maya wala diin alasay iyo mina subax ereyga aroor laga rabaa laba eray oo ku macnaa laba eray bas aan kaa rabaa aroor waxaan u aqaanaa laba eray oo kasoo horjeeda ku macnada mina subax iyo alasay subax iyo alasay waxbaa kaa maqan meeshaas waxbaa jirtay haye haddaad ka faa'iidaysan karto farxiyo waxaa waaye aroorti subaxi subax jarmaadi هذا جماد مجد صباح هي ارجع كلام قدر انت خلينا اوكي واي هاي هذه ماشاس مركع يعني مساش ugu dambeysay labadooda way jiran waayeen waxaan rabaa markaa inaan uga faa'iideeyo dadka YouTube ka isticmaalayana aan ayaguna wixii naga qaldanay soo saxan ereyga aroor waxaa la yiraahdaa subax waxaa ku macnaa subax iyo waa beriga iyo subaxa labadaas ay hadda barnaamijkii waa soo gabagabeynay xaladaha tartamee way tartameen su'aalaha adagna waa la isweydiiyey labaduba way dadaaleen farxiya xasan iyo axmed salaad farxiyo waxay meeshan caawa kula tagtay 20 dhibcood ayay qaadatay axmed salaad asaguna wuxuu helay 16 dhibcood ayuu meeshaas ka helay waxaa halkaasi 4 dhibcood ay guusha ku raacay farxiyo waxaan leeyahay guul wanaagsan waa kugu wanaagsan maalayga waa asxaabay waa u jeedin guul aan isoo yi 4 point ciyaar ma ahaan waxa ku dhaay waan ku dhididay so waxa sameynaysiin team farxiya dhamaantiin like iyo saara subscribe comment waxa waaye waa kana guul aan isoo hooyay meeshaan inka jiro wax nool aan inka jiro faatay so please wixii nagu cusub waxa sameynaysiin subscribe like comment hadaa nala joog jirtana nala joog please share channel maxaa la dhahaa YouTube channel kayga soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.